baro sida loo sameeyo galamuuta. Maanta waxaa idin wadnaa galamuuta cajaa'ib leh ansalaatadiisa iyo wixiisa nala socdo si loo sameynaa. Channelkeena haddaa ku cusubtiin please subscribe, share, like, comment intaba. Gambaleelkana furo sidaad u heshid video walba aan soo dhigno sidaad qofka ugu horeeya hela u noqotid. Haddaa hore oo subscribe u saartayna shareka iyo like iyo commentigana dhankaaga waaye. Waa galamuudo basta ragama galamuudo lima jar bisbas. Hello Mohammed. Hello, How are you doing? I'm good. Yes, how is the galamuudo? So today my dad made calamari for the first time. Yeah, so I'm going to see how it tastes and if it's good. Okay. What about you, Maisa? And today I make the calamari. Oh, you eating galamuudo. What about Mukhtar and you? Today we're into the calamari. Okay. Also, my dad made it calamari the first time. Okay. Ando maram, you eating galamuudo first. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhyaarta ina daawanaysa ku xiran channelkeena Chef Imsa. And first of all, please channelka ku cusubtahay subscribe, share, like and comment. Haddaa hore channelkeena u daawan jirtayna waa kaas share iyo commentiga. Please gambaleelka furo. Sida ujeediin maanta hilib baa idin tusaya. Hilibkaas ujeediin maanta waxaan idin soo wadnaa galamuudo yaab leh cajaa'ib leh sida loo sameynaayo ugu sahlan idinkana marka insha Allah nala fiirsada nala daawada galamuud si loo sameynaa. maanta galamuud idin sameynana insha Allah. sheekada galamuud ay ka siidan tahay marka waa kaas nala socda. hilibka waa dhaqay biyo ku shuba marka dabkan saara marka insha Allah wixii kale step by step ay idin sameynana insha Allah. hilibka dabkan saara marka soo jeedin hadda waxaan ku dareynaa wax yar oo maraq digaag ah si hadhow dhadhankiisa iyo wixiisa. marka akhyaarta saa u jeedin hilibkan dab soo saarnay maraq digaag xabaaj dhudhub qarfo iyo waxaan ku daraa filfil madow. marka waa kaas haddana waxaan geleynaa waxaan cajimeynaa maxaa la dhahaa burkii saan u cajimleen ukun iyo ku jiro meesha maraq digaag yar hal qaado yar oo sokor hal qaado yar cusbo burkaan u jeedin hal kiilo bar aan ku cajimeynaa iyo maraqaas ukunta saliid aan ku darin half cup maraq waa ujeedin. marka intaas marka isku qasno kadib waxaan haddana kusii dareynaa burkii aan ku dareynaa kusii cajimeynaa. burkana ma la rabo inas noqdo adeeg zaa'idna ma la rabo jileecna ma la rabo asxan dhinaca jileec intuu noqo laha adkaado saan burku cajimeyno waa ujeediin. maraqan ku cajimayaa marka burkii waa cajinay wuxuu raa kana saas wax yar waa dawalana haaf aan waraan dhaafeena insha Allah. kadib waa isku soo noqon haddana burkii waa kana waa fidinayna sidaan u jarjarleen. marka waxaan isticmaalayna ushi oo galamuudada loogu talagalay. marka haddaa u baahatiin waa naga heli kartaan ushaas. marka video waxaan u boobsiinaynaa inaan waxaan diidan igu dheera video aad u dheera. marka waxay waa jarjarnay u jeedin kistaas yar waa fidinaa haddana wax yar saan u balaariyo kadib haddana ushi aan u isticmaalaa aan ku jari lahay waa ujeedin aan maleynaa. marka waxaa idin tusaasay galamuudada aad ugu sahlan ay naato inaa galamuudada u arkaysiin. ushaan galamuuda looda laba nooc waa midna buskut iyo shishuumo iyo wax lagu sameeyo. marka waa haddana ujeedin maho saasa ugu jiraynaa marka insha Allah. galamuuda filinkeeda meesha isku qarxi marka waa ka saasa loo yeelaa waa ujeedin galamuuda filinkeeda meesha. haddana waxaan geleynaa insha Allah dalicitaanka haddii ilaahay kala noqdo idin tusaynaa si loo dalca step by step idin tusaynaa. marka waa kana markii oo nusko saac la dhigaa inay saas noqotaan rabaa aan jegto kadibna maxaa la dhahaa waa kariskiya la bilaabaa insha Allah. marka haddana nala socdo san u karnay nala fiirsada inta basal gaduud basal cad xawaaji dhudhub heel iyo qarfo iyo liinta dry lemon aan ku daray iyo oil leaf aan ku dalca hawakan garlic iyo tuun isku shiidan yaanyadii iyo shiidan dhammaan iyo coconut milk. waxaan u boobsinaa video inaa dhibstiin aan diida insha Allah. wixii dhan step by step waa kana basashii aan dalacina ilaa ka gaduudato kadib markii gaduudan waxaan ku dareynaa maxaa la dhahaa tuuntii iyo garlic iyo basashii isku shiidneed oon sameysana ku dareyno. marka mujeeda 3 qaado aan ku dareynaa insha Allah. kadib haddana saan wadno waxaan ku dareynaa xawaaji oo basasha gaduud xawaaji homemade xawaaji curry powder oo guriga ku sameeyay waaye. marka si loo sameeyo insha Allah idin sheegi doonaa. lama qaadaan ku daray yaanyadii hadda ku daraya koobka soo raacsinaa insha Allah nala fiirsada. marka gaduudanta xoogaa yar haddana waxaan ku dareynaa maraq digaagkana isticmaalaa 2 qaadaan ku daraa insha Allah. mumtaaz allaha lama qaado labadaas qaado markaan ku darno kadib qumbihaan ku darnay qumbaa markaan wadan halka sac qumbaa isdaad lama isticmaal kartaa laakiin hal isticmaalay
biyo kuleel aan soo karkarsaday ketalka aan ku shub kale is not enough biyo kale aan ku dari doonaa insha allah haddii loo adhow marka maxaa la dhahaa hilibkii aan ku darnay ujeediin wax dhan waa isku dhex darnay marka galaamuudadii oo waxaan soo qaadeynaa waa taas aan ku dareynaa galaamuudada marka inaan ku shubno haddana wax yar kiskis in loogu shubo waa 3 saxan saay kiskis laakiin ujeedaa haddana inta kale aan kusii dareynaa inaa waxaan rabnaa wixii dhan step by step iyo waxaas ay noqdaan oo maxaa la dhahaa oo idinkan aragtiin insha allah marka galaamuudada waa tas meeshaan kusoo afjarmi rabtaa insha allah waxaan istuseynaa markii oo soo dhamaa waa kas hoos wax yar in saas loo gedgediyaa loo baahan yahay marka kole channelkeena inta ku xiran hadda aad ugu farxadiin oo ku faraxsantiin insha allah commentiga shareka like dhinaciina waa inta nagu xiran inta kalena subscribe-ka iyo shareka iyo commentiga aad idin raba insha allah idinkoo isxumeenin oo waxba isiidhan had iyo jeer waxaan diyaarinaa wax walba aan sameynayno inaan oo idin tusno diyaar garow waa kasa galaamuuda khiyaarta dhammaadkii waa ujeediin waatana salaatadeeda galaamuudadii bisbaas cagaar ajaar galaamuudadii waatana saanay noqotay xaaladeeda marka haddii cunoogeed waa markasaa ujeediin galaamuuda waa taas galaamuuda alcajaa'ibiya laatan markasaa ujeediin ilmahan waa kana waa hadday baashaalaan inay kane nin walba galaamuudadiisa